shirweynaha khubarada horumarinta hidaha iyo dhaqanka wadamada ku midoobay urur goboleedka waa ururka caalamiga ah ee iskaashiga islaamka ayaa lagu qabtay magaalada Jidda ee wadanka Sacuudi Carabiya iyadoo Soomaaliya ay uga qayb galayaan mas'uuliyiin uu kamid yahay agaasimaha tacliinta sare ee dalku. faafaynta warkaasi Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa nooga soo diray Jidda. shirweynaha khubarada ee horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee iskaashiga ururka wadamada islaamka OIC ayaa lagu qabtay xarunta ururkaasi ee magaalada Jidda iyadoo Soomaaliya uga qayb galay agaasimaha waaxda tacliinta sare ee hidaha ee Soomaaliya Mudane Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo shirweynahaasi ku weeliyeen kusimaha ergada joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo fadhida iskaashiga ururka islaamka OIC Mudane Cabdiraxiim Cusmaan Cilmi iyo xogeeyaha koowaad ee ergada joogtada Mudane Maxamuud Cumar Jawle. haddaba shirweynahaasi ayaa si qoto dheer looga hadlayaa sida iskaashiga ee ururka wadamada islaamka OIC loogu abuuri lahaa madal loogu talagalay ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka isla markaana loo suurtagelin lahaa abaabulka iyo maalgelinta mashaariicda horumarinta barnaamijyada iyo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee wadamada islaamka. haddaba agaasimaha waaxda tacliinta sare iyo hidaha ee Soomaaliya Mudane Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo xarunta uu ka socday shirkaasi kula kulmay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya SNTV ayaa ugu waramay inay jiraan warbixino la xiriirta in siyaabaha ugu habboon ee loogu gungaari karo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka iyo sida Soomaaliya ay hodan ugu tahay meelo fara badan oo ka tarjumaysa astaamaha taariikhiga ee wadamada islaamka uu wafdiga Soomaaliyeed u gudbin doono shirweynahaasi. haddaba shirweynahaasi khubarada ayaa wuxuu daba joogaa taabagelinta talooyinkii iyo go'aanadii sharmadaxeedkii wadamada islaamka oo 27 bisha May 2019 lagu qabtay magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama iyadoo Soomaaliya oo sharmadaxeedkaasi uga qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus warbaahinta qaranka Soomaaliya SNTV xarunta ururka islaamka magaalada Jidda dalka Sacuudi Carabiya.